السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا وايدين سلامي ميلو با الدنيا ka joogtaan magacayga waa Xafsa hadee tahay markii ku horeysa aad channelka soo booqanaysid fadlan subscribe ii saar hore hada ila joogto waa ku mahadsan tahay maanta waxa sameyn doona muuqaalkan jikada organiseerayna jikada rabaa inaan kala habeeyo oo kala toosiyo maadaama Ramadaan lagu juuray marka maanta waxa rabaa jikada ina si fiican u kala nadaamiyo insha Allah إلهي سبحانه وتعالى أدونك مر الله لمركونا كياني وحال سود جي عدو أنا عدو إنوء وناقينا آن ربين خير إنان سمينا آن ربين جنة إنان هلنا كحن ربي إنان أسجود لنا آدي أبقويا مركز تجعل إنان دنبي كدعنو معاصي سمينو إلهي أشريق يلنو حمانتك تحقلنو سمانتنا آن كفوغانو cadowga aan leenahay waxa kaalmeeya oo gacan siiya waa nafta iyo adduunka nafsadiina asagay u janjeertaa oo sideedaba wanaaga ma jecla nafsadu waa amaaro xumaantay dadka amartaa nafsadu waa mid aad iyo aad uga caajista khayrka iyo wanaaga una nugul macaasida iyo xumaanta inta markay isbiirsadaan ayaa waxa meesha ka yimaada wax lagu magacaabo dambi dembigaasoo qofka aadamaha uu ku dhaco mar allaala marka dembi yimaadana ciqaab allaa yimaada carro allaa timaada sidaa darteed baa waxay kaliftaa in naarta iyo cadaabka lagu galo intaa ayadoo dhib ah oo mashaakil ah yaa xikmada raxmaanka waxay keentay addoommadii ducafada ahaa insaankii daciifka ahaa in ilaahay uu u furo albaabkaasoo fursad loogu siinayo haddii ay dhacdo inay dembi galaan oo ay macaasi sameeyaan ooy xadgudbaan ooy shaydaanku ateecaan oo xaqa iyo wanaagga ay dhinac maraan oo xumaanta ay dhex galaan inay isi soo qabtaan kadibna albaabka ay hor yimaadaan mar allaala markay albaabka hor yimaadiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala ay baryaan ay weyddiistaan inuu cafiyo bacdamay qaldameen oo ay weyddiistaan inuu saamaxo bacdamay dembi galeen oo ay weyddiistaan inuu dembiga u dhaafo bacdamaa shaydaan duufiyey simbirrixiyeyna ilaahayna ballan ayuu u qaaday subxaanahu wa tacaala in allaala intay addoommadu tawba keenayaan inuu tawbada ka aqbalo dembigii ay sameeyeenna ka saamaxo meeshii xumaanta ay ku galeenoo loogu qorayna laga tirtiro samaan iyo wanaagna loogu beddelo allaahu akbar dib u dhac ayaa loo arkay maanta wallaahi fidna ka weyn ma jirto heesihii shayaadiinnimada gabdhihii sunnaadda ahaa kuwii xaqa alla diiday ay ku socdeenna waxaa loo arkay waxyaaba hanuunin ah waxaad maqlaysaa hoballadii hanuuninta waxay hanuuninayaan maxay yihiin dadkay waxay ku hanuuninayaan naarta waxaa imaan doona buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dad noocaasoo kale ah oo xumaanta dadka ugu waca oo khayrka ilaahay diida ninka la yidhaahda xudayfa ibnu yamaan wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuulallaahi dadku waxay ahaayeen kuwa rasuulka cani ilkhayri khayrka weyddiista wa kuntu as'aluhu cani isharri anigu shartaa weyddiin jiray buu yidhi xudayfa sababtu waxay tahay makhaafata an yudrikanii anoo ka cabsanaya haleelkeeda markaasaan maalin idhi yaa rasuulallah innaa kunnaa fii jaahiliya annagu jaahli ayaan ku sugnayn iyo jaahilnimo iyo shar فجاءنا الله بهذا الخير إلهي با خير كان نو كيني أحاديثتان إيا الدين كان إيا قرآن كان أيا إله نو كيني فهل بعد هذا الخير من شر خير كان كقضاء شر ما يهي رسولك إلهي وقال نعم ها أيو الله النبي خير كان شر با كدن بين دونتا فتن أيا كدن بين دونتا قلت وهل بعد ذلك شر من خير ويهي شرطا إيمان دونتا قضاء شيء خير ما يهي قال نعم ها أيو الله خير أيا وفيه دخن لكن دخن أيا نحديث هذا واقيق أما واقع وحان إربو يري وما دخنه دخن كيسو محاواي رسولك وحو يري قوم يهدون بغير هدي وقوم كهنونا وحان هنون أهين تعرف منهم وتنكر ما يقوات أقون سنيسا مرك قبل كمد مرنا وات إنكريسا وحان إربو يري حذيف بن يمان فهل بعد ذلك الخير من شر khayrkaas ka gadaal shar kale ma yahay rasuulka ilaahayow aad ayuu uga cabsanayaa xudayfa wuxuu ka cabsanaa sharta imaanaysa wuxuu ka cabsanaa su'ul khaatima inuu ku dhinto wuxuu ka cabsanaa in ilaahay agtiisa uu wanaag ka waayo wuxuu ka cabsanaa in ilaahay agtiisa uu ku fadeexoobo wuxuu ka cabsanaa in jannada uu heli waayo wuxuu ka cabsanaa inuu nebiga la kulmi waayo wuxuu ka cabsanaa darka aakhira in laga cabsiin waayo markaasuu mar walba sharta weydiinaa nebiga fahal
وهل بعد ذلك الخير من شر خير كقضى شر ميهي قال نعم هابو راي نبي دعاة على أبواب جهنم دعاة أيا إيماني سوء الباب جهنم وضطوبا من أجابهم إليها قذفوه فيها خف كستأو أجيب ويكطوران الباب كي جهنم الباب كي ذي كرذايا ما أنت هنون انتي هاسهي النقذين هنون انتي قمرة أول لعبين النقذين هنون انتي قبيلك وحيدك سدي النقذين وردعاة النوعاس إسك إلالية الباب كجهنم أي تاغيهين مع ذلك قفكي أجيب قفكي راع جهنم الباب هذا أي كرذايا حذيفة وحوير قلت يا رسول الله صفهم لنا نوت المنبق في أن أغانا ضدك وأن إسك إلالي رسولك وحوراهم من جلدتنا مقاركين أو كلا أي ليه ويتكلمون بألسنتنا عربكين إي لقوينكين يكو هضليان حذافة وحوير ضدك ليس كما إلالين كري فما تأمرني إن أدركني ذلك محاقي فر لهيت رسولك إلهي هدي الله إيجارسي وأن صوها ليلو حالة نوعاس وافتن عجيب ضد دعاء أو كوعاية أو الباب كجهنم تاجر أو هداد أجيب تنكو غريداية أذيقو كلا مقاركاغو كلا له لقدادو كلا كو هضلاية ودد أن ليسك إلالين كريني رسولك الله فما تأمرني محاقي أمريسا إن أدركني ذلك واحد لازميسا أو كل حجريسا جماعة المسلمين تأيي إمام كوذا meelaha fisqiga fitantaha aadin riwaayadaha iyo kulshirtooyinka ha aadin dambeyn jikada sidaan soo nadaamin nadaafadu waa shay muhiim nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam an nadaafatu nusr iimaan nadaafadu waa iimaanka barkeeda daraasada la sameeyay waxa lagu ogaaday dadka gurigooda nadaamsan yahay oo nadiifsan yahay depression kuma dhacay dheheen aslan horta qof muslim inuu depression ku dhaco ma ahan munaafiqiinta iyo gaalada ku dhaca wax walba ilaahay gacantiisa ku jira adduunkan qof walba ku imtixaaman tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay wastaciinu bis-sabri was-salaat inna allaha ma'a as-saabiriin صبر إسرات كالمست إلهي وحول جرا دتك صبره هرتا اتحام كانوا حقول دبك بدل مركو إلهي دتك أني معي تاس إلهي إلوان إلهي نجمع ديكوي إلهي إلوان معدي سو الحمد لله إن شكرتم لأزيدنكم بداية الله سبحانه وتعالى ده مهد لسان وإذن كردنا الحمد لله فتنا دوفيدن كو عجبي لاقي صار يا داقتكم انت إجلسوا وذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.